الحمد لله حق حمده وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وحنو استاغي كل خطبتي wax ka daba yiraahdo ma istaagine maadaama masaajidku cusub yahay inaan wax ka tilmaamo iyadoo kale khudbad amba muhaadara laga warrami doono jumcuhu aadaabtu leeyahay iyo waxyaabaha muhiimka ay tahay inay ogaano waxa ugu horeeya markaynu de guriyaheena ka soo labisnay soo meedhanay masaajidka aynu soo galno laba qof oo isbarbar fadhiyeen aad kala geynin rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuu diiday waxa laga yaabaa qof inuu safka ugu dambeeyo ku soo beegmo isagoo raba safka ugu horeeyo inuu galo dad ku soo wada jiiraya laba qof oo isbarbar fadhiyo gacanta u kala kaxaynaya rasuulku wuu diiday alayhi salatu wasalaam waxa kale kamid ah markuu masaajidka qofku soo galo inuu laba ragcadood oo sunnah u tukado oo khafiifinayo uu soo gaabinayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam minbarku saarnaa nin baa soo galay rasuulku kacbu uu ku yiri oo laba ragcadood tuko sidoo kale Umar ibn Khattab wuxuu arkay Uthman ibn Affan oo masaajidka soo galay isagoo tukanin laba ragcadood oo sunnah wuxuu ku yiri kac oo laba ragcadood oo sunnah tuko maydhashada la maydhanayo culimadu isku waafaqsanay inay waajib tahay sida saxdiina waxay tahay inay sunna muakkada tahay qofku marka uu masjidka soo galo ee uu labada ragcadood tukado imaamku intuu soo galayo wuxuu akhrisanayaa wixii u fudaaday adkaar iyo quraana waxaana sunna ah oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay in jumca ila jumca qofka loogu iftiiminayo suuratul kahf inuu akhriyo suuratul kahf oo dhameystiran suuratul kahfina waxa ku jira qisooyin fara badan oo qofka qalbigiisa dabcinaya oo nuurinaya sidoo kale waxa ku jira aayaadka ugu horeeyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qofka dajaal ku akhriya ama masiixu dajaal ku akhriya inaanu dhibahayn ama waqtigiisa fitnadiisa qofka akhrista fitnaas inaanu dhibayn buu rasuulka waramay alayhi salatu wasalaam waxa kale qofka saaran marka uu masjidka yimaado oo fadhiisto inaanu cid la hadlin rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay qofka hadlaa jumcii uu iska buriyay waxa kale la mid ah inaanu waxba ka shanqarinin daaqad inaanu xidhin siibad inaanu xidhanin mobil inaanu saylan gelinin inaanu waxba taabanin waa inuu khudbada ku mashquulsanaado markuu imaamku minbarka soo fuulo inta ka horeysa xarakada dhaqaaq iyo hadalku waa banaayin ama hadduu imaamku minbarka fuulo ma banaana hadalku xaraan buu noqonayaa hatta qof aamus kuma oran kartid gacan waad ugu ishaari kartaa qofku salaamayna gacan waad ku salaami kartaa adigoon hadal la imanin laakiin inaad hadashaa khudbadii bay ku seejinaysaa iyo fadligii jumcaha rasuulku sidoo ka waramay alayhi salatu wasalaam dhalinyarada masaajidka lagama maarmaan bay u yihiin oo lagama maarmayo ama 5 jir ha noqdo ama 6 jir ha noqdo ama 7 jir ha noqdo ama 10 jir ha noqdo waa in masjidka lagu tarbiyadeeyo waxaad moodaa inta la soo fahmayo dadka qaarkood ay haystaan waqtigii dhagax ahaayee hore uun hadduu inay yaro safka ku jira arko uu la dagaalamay ama dhirbaax ku dhufanay ama dib u riixaya ma aha in sidaa lagu sameeyo waxaynu ognahay weerarka gaaladu inagu hayaan ee ubadkeen iyo dumarkeen iyo guryaheena ay ku soo qaadeen inay maskaxda inay qabsadaan bay rabaan inay ubadkeena lumiyaan bay rabaan oo ay leexiyaan iyo dumarkeena haday ubadkii iyo dumarku inaga hoos baxaanna tarbiyadu way lumaysaa waayo dadka waaweyn way tagayaan dadka dalka u haraya ee diinta dhaxlaya waa yar ka weeyaan maynu jirin waqtiyadii diinta lagu faafinayay magaalada ama la gaarsiinayay dacwada dadku muslimiin bay haayeen sax laakiin de waxa la gaarsiiyay waxyaabo badan oo ay garanayeen oo cilmi aan ay u lahayn ayaa dadka loo sheegay inagu maynu jirin maantana inaga gaarsiinayna dadka wixii sharciga ahaa sidaas sax bay leeyahay saas khalad inagu daliilkii sheegayna oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ku xoojinayna ama aayad quraan ku xoojinayna barina inaga cid aan ahayn baa imanayso waa yar ka weeyaan yararkaas ayna dhaxlayaan saddex arrimood baynu uga baahan wax kale baynu uga baahnaa marka koowaad waxaynu uga baahan inaynu jeclaano oo soo dhaweyno oo madaxa u salaxno inaanu masaajidka ku soo tukada haday hadlaan iyo haday buuqaan iyo haday qayliyaan in inta loo tago lacag fadhiisto la yiraahdo qaylada masaajidka kuma haboona ba u fiirsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo sujuudsan oo umada tukinaya ayuu ilmo yar dhakada ka fuulay rasuulka alayhi salatu wasalaam maanta imaamiyada kamida magaalada waxa laga yaabaa intuu qabto in xagga dambe ku tuurla Soomaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ma buu soo kicina sujuudii iska sii watay saxaabadii markuu salaad ka baxay wuxuu ku yiri ilmo yar baa halkan dhakada iga fuulo ilmaha yar baan sugay intuu ka degayo tunkayga meel helay imaam saas sameyn karaya soo dhawaad tunku soo qabanaya saddex bad quraanka waxa muhiim ah inaan ubadka u sabirno waxa muhiim ah guriyaha inaan ku soo baraarujino oo guriga intaan ka soo bixinayno ku nidhaano masaajidka ha dhibin masaajidka nadaafadiisa ilaali masaajidka marka tagto si edeb la u fadhiiso ilaahay baa caabudaysa أشرك والدك لو قرية حسناتك والدك لو قرية
وإنه قفكي كفى إيديستو ilmihi saayir cibaadeysanaya oo masaajidka u soo kaxaynaya masaajidka u geenayo xasan uu ku leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabadha ilmo yar kor u qaado tiri ka xatma lagu leeyahay ma geen kara rasuulku uma diidin alayhi salatu wasalam mu oranin mu qaan gaadhin ka cili mu oran rasuulku wuxuu sheegay in iyaduna bar ku leedahay ajarkii ay rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam haduu hadlo ilmo yari waa in la aamusiyo hadaad kacdood gacanta qabato laba ciyaal kala kaxayso jimci kaama buriyade adoona hadaad kala kaxayso labadoodii wax dhibaato kuma keenayso لكن إن ترى رسول كل شيء صلى الله عليه وسلم غرور قف كسن قليل غرور إنه تمعي كبري ساسو شيء رسول صلى الله عليه وسلم أحكامتها يقار كلا كبدا إن شاء الله أي لا هذه صلاة الجمعة وأنا التلمام دونا إلهي سبحانه وتعالى كل رقم كبر رواية نقدره مسجد كان جوهر إن لسوق له رسول صلى الله عليه وسلم هو تلمام وأن جوهر لسوق له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك